Goorma kuugu dambeysay qalabka ama agabka ay isticmaalaan dadka reer miyiga Soomaaliyeed? Dadka reer miyiga oo ah iyagu dad reer guuraa ah ayaa waxa ay isticmaali jireen alaab ka duwan alaabta marka iyagu magaalada laga isticmaalo. Alaabta reer miyigu ay isticmaalaan ayaa qalabkooda waxa uu banaa qalab iyagu gacmaha ay ku samaysteen. Dadka reer miyiga ah ayaa alaabta ay isticmaali jireen waxaa ka mid ah haddii ay noqoto alaabaha ama agabka loo isticmaalo xagga cunista ama kuwa ay wax ku cabaanba. Waxaana ka mid ahaa alaabaha ay isticmaalaan sida diisha, haruugaalka, xeerada, qudaha, fandaalka iyo tabadaba. Qalabka ay u isticmaali jireen inay ku keensadaan cuntooyinka ama ay ku cunaanba. Qalabka sidaas oo kale hurdada ayaa wuxuu ka duwanaa kan magaalada laga isticmaalo. Waxaana ka mid ahaa darinta barkinka ama loo koonfurtana laga yiraahdo barshin oo ah barkin ay barkadaan geel jirayaashu marka ay geel la joogaan, weylaalis ama raradaba. Waxyaalahaas ayaa waxa ay ahayd waxyaalaha ay qalab ay iyagu dadka reer miyigu marka ay gacmahooda ku samaysan jireen, halka dadka reer magaalkuna ay ka isticmaali jireen qalab laga keenay dibadaha. Haddaba Mahamud Maxamed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolkan oo haya ayaa oo ahaan jirayna agaasimaha madxafka Soomaaliya ayaa wuxuu xil iska saaray inuu ururiyo taariikhda agabka iyo sawirro badan oo ay leedahay taariikhda Soomaaliya. Maxamed ayaa wuxuu sidaas oo kale xil dheeraada iska saaray in uu baro dhalinta iskuulaadka dhigata in ay bartaan dhaqanka Soomaaliyeed, sidaas oo kalena ay sii baraan dadka. Mahamud oo isagu ahaan jiray macallin ka dhiga iskuulaadka magaalada Columbus gobolkan Ohio ayaa hadda wuxuu madax ka yahay Somali Culture and Research Center, xarunta raadinta dhaqanka Soomaaliyeed ee ku taala magaalada Columbus. Waxaa isbuucan ii suura gashay inaan Mahamud Maxamed oo loo yaqaano Dirios inaan ku soo booqdo xarunta dhaqanka Soomaalida ee magaalada Columbus oo iyada ku taala xarunta weyn ee loo yaqaan ee ganacsiga ee loo yaqaano Global Mall. Mahamud ayaa waxaan ka waraystay bal inuu warbixin naga siiyo xaruntani waxay ku saabsan tahay iyo waxyaalaha ay qabtaanba. Waa kana waraysigii Mahamudna wuxuu kaga jawaabay sida tan. magacaygu waa Mahamud Maxamed Diriye oo loo yaqaano Dirios baan ku magac dheerahay. anigu waxaan ahay dadkii dalka wax ku soo bartay. jaamacad baan uga baxay, taqasus baan dibadda ugu nimid, dabadeedna dib baan ugu noqonay dalkii. waxaan ka shaqayn jiray tacliinta sare aan u shaqayn jiray, maraan Academy of Science ka shaqayn jiray iyo maraan madxafyada hayay oo aan ahaa agaasimaha madxafyada Soomaaliyeed ama Curator of National Museum sida loo yaqaano. muddo badan adigu waxaan ku noolaa dibadahaas, Sweden, Talyaaniga, hadda ilaa iyo 2000 waxaan ku noolahay Mareykanka. magaaladan macallin baan ka noqday, dabadeedna hadda waxaan ahay walaalle haddaad fiirsatid waxaanu ku noolnahay waqti lagu magacaabo globalization era oo adduunka oo dhan uu hal tuulo yahay markii loo fiiriyo dhinaca dhaqaalaha, dhinaca siyaasadda iyo dhinaca dhaqaneedba. dhaqdhaqaaqaas xawliga ah oo dhaqan milanka ah waxay had iyo goor ay nuugaan ama ay marka centerkaanu ama xaruntaanu waxa weeye waxaanu ku kaydinaa agabka Soomaaliyeed iyo dhaqanka Soomaaliyeed. waxaad aragtaa qalab badan, waxaanu wareegnaa jaamacadaha iyo iskuulada, bandhig dhaqameed ayaanu ku sameynaa sida cultural exhibition waxaan loo yaqaano. macallimiin badan iyo arday badan oo waxaa noo yimaada dalkan Mareykanka, jaamacadaha kala gedisan, halka ayaanu dhaqanka Soomaalida ayaanu ku barnaa. ardadeennuna maalmaha ay leeyihiin maalmaha dhaqanka sanad kasta ama culture day-ga lagu magacaabo, alaab baanu siinaa si ay saaxiibadooda iyo ardada kale ay u tusiyaan. marka muhiimaddeeda noogu weyn waxa weeye inaanu dhaqankeena badbaadino oo aanu noolayno moogtahay.
maaha inaanu cultural itemska ama waxaan ethnografyada loo yaqaano aanu aruurino, laakiin waxaanu aruurinaa information badan oo caruurteennu ay berito u baahan doonaan for educational purpose, oo taariikhda oo wax kasta ayaanu electronically computerka aanu ugu haynaa, kuwaasoo markastoo aanu vidiyaanu diyaarinaa. marka haddaan qalabkan wax kaaga sheego, qalabo badan oo waxaa ku jira sida haanti, waa gurgurka soomaalida waxa loo yaqaano, waxaa barshiino aanu haynaa, haan, dhiilo badan, xeerooyin kala duwan oo aada u qadiimi ah. marka aada eegtid waa xeero, waa kurbin baa tan la dhahaa, kuwan kale xeero ayaa la dhahaa, waa very old. markaad aragtid qaarkood waa kala waaweyn yihiin. waa alaab la goyn kara maaha. marka waxaasaanu aruurinaa, waanu wax ka turjumaya dhaqanka iyaga iyo hidaha iyaga Soomaaliyeed. halkan waxaa iga muuqataa kuushan weyn oo Soomaalida, kuushan waxa weeye waa cunaabi weeye, waa cunaabi weeye, waxa weeye qaarkood boqolaal sano jiraan. waxaanu haynaa jewelry badan oo Soomaalidu marka ay isguursanayaan iyo aanu siino xirtaan oo aad siisaan oo gobollo badan oo Mareykanka ka badanaa gabdhuhu marka ay isguursanayaan waxaanu ku magaciisanaa dhaqankooda, sidaasoo kale ayay u labistaan quruxdaas leh. intaa waxaa noo soo raacaa, sanad kasta waxaanu sameynaa culture festival. haddaan ku tusiyo boostaradoodu, kan waa kii sanad hore weeye, culture festivalkaas oo aanu arday badan ilaa ay 4,000 isugu keeno, ardooyinka jaamacadaha iyo iskuullada. waanu habeenkaas ay sameeyaan dhaqankooda ay muujiyaan. waxyaalahan badankood waxa weeye waxyaala ardayda aan ugu talagalno moogtahay oo soomaalinimadooda ay ku muujinayaan oo kale, iyo oo aan wax badan joogin, $5 $4 jooga. souvenirs baa la dhahaa, ardayda markay inoo yimaadaan sida ay u iibsadaan, annaguna aanu markaa ijaarka u bixino. waxyaalahaasaanu markaa aanu inta kale waxa weeye alaabaanan aanu ma iibino. maalin sanadkii hore madaxweynaha markuu yimi balad buuna siiyey presidential awards, aad ugu aragtid kuwa badan baanu helnaa. Sheekh Shariif kana neighborhoodkana siiya, Columbus baana siiya, kuwa badan baanu leeyahay. taariikhdeena Soomaaliyeed oo aan u kala qaybshay shalay iyo doraad iyo maanta. tan waa dowladii aadan cadee, ilmaheenu ma oga ama xitaa kama warhayaan inaanu mar dowlad xoog badan oo sharaf iyo sumcad leh aanu ahayn, oo adduunkoo dhan uu noo imaan jiray, moogtahay qayb weynna ka qaatay horumarka Afrika, yacni taariikh ahaan. madaxweynahan waa madaxweynihii ugu horeeyay waaye, oo aadan cabdulla cusmaan weeye. kan waad u jeedaan, Nyereera la socda markaan maruu taariya tegay. marka waxaasaan iyo xamar siduu ahaan jiray, noloshu ay ahayd markaa. Hi, come on, go around. dadkan waa dad marti noo ah dhaqanka Soomaalida. madaxweyne hormaaka saad u jeedid, dad badan baa usoo daawasho taga meeshaas. Hi. Dirios, Mahamud. Hi, how you doing? Fine.
Somali being the first Somali president.